kulanti wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada halkani waa Bilan News waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo afayeenkii lafta garaan ugaas xasan oo soo hadlay isla markaana hanjabaad u diray maamulka Adamadoobe iyo shacabka Baydhabo oo xalay argagax ku seexday kadib markii ay maqleen jug culus haddaba maxay tahay jugtaasi faahfaahinta ayaa iskugu soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan balse markii waa soo dhawow muuqaalka like gareys oo kalena sii share gareys si dad badan ay xogteena u gaadho haddii aan ku bilowno afayeenka koonfur galbeed ugaas xasan ayaa markii ugu horeysay waxa uu si faahfaahsan uga hadlay xaaladda magaalada Baydhabo iyo weerarkii dhawaan ay ku qaadeen isagoona ku hanjabay in weeraradu ay sii socon doonaan iyo howlgallada qorsheysan ee ay la beegsanayaan gudaha magaalada Baydhabo xilli shacabka Baydhabo xalay ay ku seexdeen cabsi kadib markii jug xoogan ay maqleen oo isxigxigtay taasoo la sheegay markii dambe in ciidamada Itoobiyaanka ay qoryo culus markaasi ay rideen oo ay la beegsanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isku urursanaya duleedka magaalada Baydhabo ugaas xasan afayeenka lafta garaan ayaa waxa uu markaasi ku hanjabay in weeraradu ay sii socon doonaan isagoona iska fogeeyay oo beeniyay dhammaan eedeymihii wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya dhawaan ay u jeedisay waxaana hadaladiisii kamid ahaa afayeenka sida tan magaca doontaan noo bixiya cidda rabtaan nagu shaabadeeya annagu dowladda koonfur galbeed iyo shacbigeedaan nahay ciidamada daraawiishta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay weerar 3 jaha ku qaadeen ciidamadii duulaanka ku ahaa jiritaanka dowladnimo jiritaanka ummadeed iyo gobonnimo ee reer koonfur galbeed Soomaaliya salbalaar iyo afalaar ilaahay mahadii waxaan ka gaaray guulo waaweyn oo la taaban karo kamana istaagayno halgankeena aan ku difaacanayna gobonnimadeena iyo sharafkeena una sii socon doonaa ilaahay idinkii gobonnimada waa loo dhintaa waa loo dhaawacmaa naf iyo maal ayaa ku baxo intaba waa u bixinay waana u bixin doonaa Allah subxaanahu wa ta'aala hadduu qadaro shacbigeena sharafta lahow meel walbood joogtaa marnaba yaysan idin niyad jebinin waxa ay nimankan samaynayaan oo propagandada ah oo ay inta jadka shacabka jidadka ka soo aruuriyaan ay leeyihiin waa maxaabiista ciidamada daraawiishta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya markalaan ku celinaynaa ilaahay idinkii waa guuleysanaynaa sharafkeenna waa soo ceshanaynaa gobonnimadeenna waa helaynaa xasan sheekh maxamuud iyo salbalaar iyo afalaarna waxa ay koonfur galbeed la damacsan yihiin damacooda guracan marna kama hirgalayo intaan anagu nool nahay ifka saarana haddii ilaahay uu idmo halgankeennan muddo dheer buu socon doonaa waa halgan sharafeed waa halgan aan rabno in jiilka naga dambeeya ay taariikhda u gasho 26 sano ilaa 28 sano ka hor bay odayaashii deegaanadan Allah u naxariistay odayaasha ka ahaa ay diideen duulaan dibadda laga soo abaabulay in dadkeena lagu dulaysto diyaaradaha Turkida ee u adeegsada Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta aragtidan guracan la qabto marna nama cabsi gelinayaan soo kiciya waxa doontaan dabaabaad idin dhiman kala malaha la imaada ilaahay idinkii ciidanaynu leenahay iyadaasaa inoo hiilinayso iyadaasaan leenahay iyadaasaan ka nimid taasaana nalagu aasi doonaa haddii ilaahay magaca doontaan noo bixiya cidda rabtaan nagu shaabadeeya annagu dowladda koonfur galbeed iyo shacbigeedaan nahay dhaha haddaa rabtaan shabaabaad tihiin ama shabaab kalkaalaad tihiin waxaa rabtaan nagu tilmaama cid walbo aragtidiina guracan ka soo horjeedsata weligiina dhihi jirteen waa shabaab iyo nabadiid intaba naguma cusba ereyada noocaas ah oo aad miidiyaha u isticmaashaan ilaahay idinkii ciidamadeenna meel walba ay joogaan daraawiishta dowladda koonfur galbeed waxaan leeyahay geesiyaasheenna sharafta lahow dhiiggiinna iyo dhaawiciinaan rabnaa in berrito jiilka imaan doono ay taariikhda buug dahaba ugu qoranay ooga sheekeeyaan waxaad tihiin geesiyaal hurdada u diiday kuwa hablaheenna kufsaday kuwa dukaamadeenni dhacay kuwa mobayladeena maalin cad ka qaata hablaheenna dhufeesyada ka samaysta guryaheenna rabana in magaaladeennii sharafta lahayd ee Baydhabo ahayd inay burburiyaan gobonnimaan idin rajaynaynaa sharafna waad leedihiin annaguna waa idin garab taagannahay sida aad safka hore ugu jirtaan ayaan annaguna ugu jiraa haddaan nahay mas-uuliyiddii dowladda koonfur galbeed Soomaaliya